dhalinyarada muslimiinta qaar badan oo ka mid ah haddii aad weydiiso ma garanaysaa Michael Jackson waxay ku jawaabi doonaan inuu yahay heesaa caan ah oo ka tirsanaa madowga Mareykanka balse haddii aad weydiiso ma garanaysaa Malcolm X badankooda ma garanayo ayay kugu jawaabi doonaan haddaba waa kuma Malcolm X ama Xaaja Malik Shabazz Malcolm wuxuu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka madowga ah ee ugu saameynta badnaa taariikhda Mareykanka waxa uu sabab u ahaa Ilaahay ka sokow in diinta Islaamka ah ku faafto madowga Mareykanka dhexdooda waqti ay dadka madowga ah waajahayeen faquuq iyo cunsurinimo ka dhan ah cadaanka waxa uu Malcolm saxay uu toosiyay xarakada Islaamiga ah ee madowga Mareykanka oo in badan ka weecatay diinta Islaamka xilli ay jirto dulaysi iyo isfaquuq ayuu dhashay Malcolm aabihiisana waxa uu ahaa wadaad kaniisadeed Kirishtaan ah markii uu ahaa 6 jir waxa aabihiisa dilay cadaan cunsuriyiin ah sidoo kale adeerkiisa waxa la daldalay asagoon maxkamad la soo taagin halkaasna Malcolm waxa uu ku soo dhadhamiyay qaraarka cunsuriyada waliba asagoo aad u yar geerida aabihiisa kadib waxa xumaaday xaalka qoyska maaliyad ahaan waxayna ahaayeen kuwa ku nool lacagaha sadaqada ah oo ay dadka siiyaan hooyadiisa oo xaaladan ka murugaysan ayaa xanuunsatay nafsi ahaan waxayna gashay isbitaal oo ay ku jirtay nolosheeda inta ka dhiman Malcolm iyo walaalihiisa oo noqday hooyo iyo aabe la'aan ayaa waxaa loo kala qeybiyay guryo kala duwan si loogu koriyo kadib Malcolm waxa uu ku biiray iskuul u dhawaa xaafadiisa waxa uuna ahaa madowga kaliya ee dhiganayay iskuulka waxayna ardayda kale ugu jireen madoobe heer markii dambe uu u qaatay inuu madoobe uu yahay qayb ka mid ah magaciisa waxa uu ahaa arday maskax badan oo ka garaad sareeya ardayda kale macallimiintiisa cadaanka ah markii ay arkeen garaadkiisa sareeya waxay ku rideen niyad jab waxaana laga eriyay iskuulka taasna waxay keentay in Malcolm uu noqdo qof nolosha ka dhacsan asagoo 16 jir ah waxa la dhigay xabsiga waxuuna waxbarashada dugsiga sare dhameystay asagoo ku jira xabsiga ku jira ayuu ku qalin jabiyay darajo sareysa wuxuu ku hamweynaa inuu noqdo abukaate ama qareen balse ma aysan u suurtagelin wuxuu isku dayay inuu jaamacad barto kadib markii mid ka mid ah macallimiintiisa uu u sheegay in riyadiisa ah abukaate inuu noqdo ay tahay riyo aanan weligeed rumoobeyn sababtoo ah inuu yahay qof madow ah Malcolm waxa ku dhacay niyad jab halkaas ayay isku bedeshay noloshiisa Malcolm asagoo iska daayay waxbarashadii kadibna bilaabay inuu ka shaqeeyo shaqooyin liita sida inuu ka niikiyo kalaabyada noloshiisa ayaa noqotay mid mugdi ah wuxuuna bilaabay inuu isticmaalo maandooriyaal iyo cabista khamrada sidoo kale uu ka ganacsado daroogada iyo inuu xado baabuurta si uu lacag u helo ugu dambeynna asaga iyo asxaabtiisa ayaa loo taxaabay xabsiga waxaana lagu xukumay xabsi 10 sano ah halka saaxiibadiisa cadaanka ah oo ay isku dambi ahaayeen lagu xukumay 5 sano 1946 ayuu xabsiga galay kadib xabsiga gudihiisa ayuu iskaga daayay waxyaabaha maandooriyaalka ah wuxuuna u jilba jabsaday wax akhris isagoo akhriyay in ka badan 1000 buug waxa uu fahmay waxyaabo badan waxaana u suurto gashay inuu bedelo shakhsiyadiisa uuna noqdo qof fiican waxaa islaamay walaalihiisa dhammaantood oo ay diinta ka soo gaartay dhanka nin lagu magacaabo Elijah Muhammad oo ahaa nin sheeganayay nabi dadka madowga ah loo soo diray wuxuuna aaminsanaa in islaamka uu ku kooban yahay kaliya dadka madowga ah Malcolmna sidoo kale wuu soo islaamay asagoo ku jira xabsiga wuxuu bilaabay inuu qabto doodo islaami ah iyo inuu ku fidiyo diinta islaamka xabsiga dhexdiisa kadib waxa laga sii daayay xabsiga ujeedka loo soo daayay ayaa ahaa in la joojiyo dacwada uu xabsiga ka dhex waday kadib waxa uu ku biiray xarakada islaamiga ah oo uu hogaaminayay Maxamed Elijah Malcolm wuxuu bilaabay inuu soo jeediyo khudbado iyo hadallo iyo dacwo uu ku faafinayo diinta islaamka ah waxa uu diinta ugu wici jiray dhalinyarada madowga ah waxaana hadalkiisa iyo dacwooyinkiisa ku islaamay
dad badan oo ku soo biiray ururka Islaamiga ah. Sanadkii 1959 waxa uu galay safar dhirir badan oo uu ku soo maray Masar, Sacuudiga, Iiraan, Ghana, wuxuuna la kulmay Jamaal Cabdinaasir. waxa uu rabay markaas inuu xajka aado, laakiin waxa uu ku qasbanaaday inuu soo laabto xanuun hayay awgiis. magaciisa waxa uu u bedelay Malcolm X xilligaas. 1962 Malcolm waxa uu isaga baxay ururka Islaamiga sheeganayay kadib markii ay soo ifbaxday fadeexo uu sameeyay hogaamiyaha ururka oo ahayd inuu uur sharci darro ah u reeyay sekreteerooyinkiisa mid ka mid ah. isbedelka ugu weyn noloshiisa ayaa dhacay sanadkii 1964 kadib markii uu akhriyay kitaab ka hadlaya xajka iyo asaasiyaadka diinta Islaamka. waxa uuna jeclaaday inuu soo xajiyo. markii uu ku guda jiray xajkana waxa uu arkay xujay badan oo midabo kala duwan leh, halkaasna waxa uu caddaatay in Islaamka uusan gooni u ahayn kaliya dadka madowga ah ee uu ka dhaxeeyo dhammaan muslimiinta adduunka, midab walba ay lahaadaan. 12 maalin uu joogay Maka waxa uu ogaaday waxyaabo badan oo ka khaldanaa, wuxuuna fahmay fahamka saxda ah ee Islaamka iyo inuu ku sugnaa khalad sanadihii uu Islaamka faafinayay. wuxuu bartay salaada saxda ah oo uusan horay u aqoonin. waxa uuna isweydiiyey sidee ayaan ku baran waayay salaada sanadahan dhan oo aan sheeganay inaan ahay qof muslim ah. markii uu xajka dhameystay Malcolm waxa uu mar kale iclaamiyay islaamkiisa asagoo muujiyay inuu sanadihii hore oo dhan baadi ku sugnaa. markaasna magaciisa waxa uu u bedelay Xaaji Malik Shabazz. 2 isbuuc ayuu wuxuu ku fahmay wuxuu 39 sano ku fahmi waayay. markii uu Mareykanka ku soo laabtay waxa uu bilaabay faafinta diinta Islaamka ah ee saxda ah, asagoo uga digayay dadka baadida iyo beenta xarakada Islaamiga ah ee baadiyeysan. waxaa soo wajahay nacayb xooggan oo ka imaanaya ururkii hore oo baadida ahaa. waxa uuna aasaasay xarako cusub oo Islaami Sunni ah. waxaa ku soo biiray oo soo raacay dad badan oo ay u badnaayeen dad madow ah. arrinkan ayaa waxaa aad uga carooday hogaamiyaha xarakada Islaamiga ee baadida ahayd. waxa uuna u goodiyey Malcolm marar badan asagoo u sheegay inuu joojiyo diifaanfinta saxda ah. Malcolm arrinkan dhag jalaq uma uusan siin, wuxuu sii waday faafinta diinta. 14 Febraayo kadib markii ay ururka amreen dilka Malcolm X ayaa la soo weeraray gurigiisa, balse nasiib wanaag waa uu ka badbaaday isku daygaas. wargeysyada ayaa soo qoray warar been abuur ah ay ka sameeyeen Malcolm, waxayna ku tilmaameen inuu yahay nin colaad huris ah. waxaa la yaab ah in wargeysyada markii Malcolm uu ka tirsanaa ururka baadiyeysan ee Islaam isku sheega ah ay taageerayeen, marka uu bilaabay faafinta diinta saxda ahna ay ka soo horjeesteen, waliba weerar afka ah ku soo qaadeen. Malcolm waxa uu dhahay xajka waxa uu ii furay indhaha, waxaana 2 isbuuc ku arkay 39 sano waxaan ku arki waayay. waxaan arkay dad badan oo isugu jira madow iyo caddaan oo ay qalbiyadooda midaysan yihiin. wuxuu kaloo dhahay aniga hadda waxaan noolahay waqtiga la shahiidayay, haddii ay dhacdo inaan dhintana waxaan noqon doonaa shahiid. maalin maalmaha ka mid ah asagoo jeedinaya khudbad meel fagaaro ah ayaa la soo weeraray laguna dhuftay 16 rasaas ah. sidaas ayuuna ku shahiiday halyeygii madowga ee muslimka ahaa. waxaan Ilaahay u weydiinaynaa inuu ka dhigo mid ka mid ah shuhadada muslimiinta.